أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ka hadli doonaa faa'iidooyinka uu leeyahay muuska caafimaadka jirkeena. Haddii aan soo qaato, muuska wuxuu faa'iido u leeyahay indha xanuunka ama indhaha oo daciifooba. Wuxuu laga helaa vitamin A oo aad ugu wanaagsan indhaha qofka markii ay daanaqato ama ay indhaheeda daciifoobaan. Waxaa laga helaa vitamin A, indhaha wuu wanaagsan yahay. waxaa kaloo muuska laga helaa maado loo yaqaan potassium aad ugu fiican qofka qaba wadna xanuunka, ama waxay aad ugu wanaagsan tahay qolqolka dhiigga wareega, wadnaha shaqayntiisa way dardargelisaa. waxay kale awood u siisaa wadnaha inuu dhaqsi u siiyo oksijiinka maskaxda. waxaa kaloo ugu wanaagsan yahay muuska dhiig yarada ama waxa loo yaqaan anemiyada, oo qofka markuu yahay anemia ama dhiig yarada waxa loo yaqaan waa cuntada ugu wanaagsan ee lagu quudiyaa ama lagu daaweeyo qofka anemiyada ah. muuska wuxuu kaloo faa'iido u leeyahay jirkeena oo na siiyaa stresska ama isku furanka qofka markuu isku buuqsan yahay ama uu yahay qof dareemaya cadaadis xagga maskaxda ama uu isku buuqa. wuxuu siinayaa maado loo yaqaan serotonin oo siiya muuska oo muhiim u ah jirka bini'aadamka. qofka markii uu hela maadadaasna wuxuu noqdaa qof happy ah, faraxsan, dareemaya deganaan marwale ah. muuska wuxuu kaloo jirkeena faa'iido u leeyahay, wuxuuna siiyaa fitamiinaad kala ah vitamin A, wuxuuna siiyaa nafaqooyin fara badan, carbohydrates. muuska wuxuu kaloo faa'iido u leeyahay ama laga helaa overweight-ka qofka markuu yahay. wuxuu siinayaa qofkaas oo ka caawinaya loss weight inuu sameeyo. aroortii markuu qofkaasi sameeyaa 2 xabo moos ugu yaraan 3 markuu cuno, wuxuu noqonayaa qof cunto dhameystiran qudrad ahaan cunay. wuxuu kaloo ka faa'iidayaa inuu noqdaa lost weight inuu noqdaa. wuxuu kaloo ka faa'iidayaa inuu appetite loo noqdaa, isagoo haddana jirkiisii wixiis isku dheelitirnaanayaan. waxaa kaloo muuska uu nasiiyaa ama laga helaa tamar xooggan. markii aad maanta ugu yaraan cuntid 1 xabo 2 xabo moos waxaad awood u yeelanaysaa ugu yaraan 90 daqiiqo oo tamar aad ku shaqaysid inaad heshid, ama exercise ku samaysid, ama 90 daqiiqo shaqo aad qabatid awoodeeda ayaa yeelanaysaa. tis ayaan kusoo gabagabeynaa cashirkeeni maanta aga hadlayna muuska. السلام عليكم ورحمة الله.